السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan halkan ka baranaynaa sida la iskaga blogareeyo ama loo xiro website-yada adoo isticmaalaya TP-Link-gaaga website-yada aflaanta xun ee bound-site-ka loo yaqaan ee ku imaado notification-ka ama message aan kugu soo dhacay markii uu dhay ku soo yiraahdana aad markaad access aad tagaysa aflaanta xun sida sex oo kale wixii la midka aad ku arkaysid sidee marka router-ka aad isticmaalaysa ama TP-Link-ga aad isticmaalaysa looga xiraa adoo isticmaalayso DNS ama IP address-kan inta kaaga muuqda oo hadda inta yaala sidee loogu xiraa sidii marka message-kaas kugu soo dhicin oo aflaanta xun kugu imaan waxaan baranaynaa sida looga xiro ama la iskaga blogareeyo aflaanta xun sidii kugu soo dhicin haddii dadka damcaan weerarsan karaan iyaga nafsadooda aflaanta laakiin soo dhicista message-ka qaldan ee qofka bini'aadamka aan dan ka lahayn aan raadinaynin u soo dhacaya la blogareynaya qofka isaga raasada waa shakhsiyadiisa marka message kala blogareynaya ama message-ka ku imaanaya sida qaldan uu soo dhacayo isagana dan ka lahayn marka halkaan ku baranaynaa waxaan galeynaa marka router-ka anagoo TP-Link-ga isticmaalayna TP-Link-ga xaafadda noo yaala ama router-ka wifi-ga sida u taqaanaan anagoo wifi-ga naga isticmaalayno ayaa waxaan xiraynaa bound-site-ka iska xiraynaa markaan bound-site-ka xirayno waan baranaynaa hadda waxaan gelinaynaa IP address-kan uu ugu diyaarsan yahay waxaan leenahay waxaan tegaynaa THCP waa dynamic host configuration protocol laga soo gaabiyey waa dynamic host and configuration protocol laga soo gaabshay and DHCP waxaan halkan tegaynaa halkaan everton tegaynaa marka waxaan qoraynaa aniga automatically waan isticmaalay waa 200 waa 208.67.2222.123 oo ay la isticmaalayo IP-gaas DNS-ka IP address-ka oo DNS-ka ayaa la isticmaalayaa sidoo kale maxaa leeyahay meeshu kan 22 ahaa kan 2212 waay oo 0 gadaal raacay 2 damba ka baxay meesha inta kale oo ka sameeyeen waxaa ka baxay meesha 0 ay galaysa booskan kadibna Stefan leena ma noo imaan doonto wuxuu weydiinayaa kligan leeyahay reboot waa isdimina oo soo shidaya reboot isu diraya marka saan haduu qaato configuration-kan qaato waxa notification-nada soo dhaco oo sida hadii ay la mid tahay saan kale kugu soo dhacayo oo ku soo dhacay notification-nada hayna soo muuqdo asha waxa jira notification-ka saan kale ku imaanayo oo soo dhaca oo la xiriira bound-site-ka ama aflaanta xun ee dadka bini'aadamka qalbigooda wax u dhinta ku soo dhaca waxaas baa marka maanta halkan ku baranaynaa si loo blogareeyo haddana sida tan oo noo soo laabtay wuxuu wataa rebooting-ku wadaa markuu soo kaco arkaynaa waa rebooting ku maqan yahay maadaama qadka go-ayo wuu soo kicinayaa marka isla arkaynaa notification-nada sida yihiin hadda waa noo soo dhameynayaa marka waxaan isla arkaynaa allahumma mustacaan ala maa tasifuun noo soo kaco marka waa kana notification-ka aan leenahay waxyaalaha marka notification saan kale usoo dhacay jiro oo ay leeyihiin bound-site-ka qofka bini'aadamku iska jirin wuu ku soo dhacayaa message ahaan kugu imaanayaa kadibna markaas waxaa waaye message ku imaanaya waxa marka blogaroobaya oo ka xirmaya notification-nada saan kale sida qaldan kugu imaanayo oo browser-rada mobilada isticmaalaysa kaaga soo dhacayo adoo iska jiraan arkaysaa marka sidii feedmail-ka kale marka la isticmaalayo message soo dhaco kale saas oo kale marka dhagsiisan kugu soo muuqanayo notification kuwaas la marka kuwaas baa blogaroob xirmayo notification-nada noocadaas ah marka sidiisa kugu soo dhicin dadka bini'aadamka soo arkin ugu qaldamin aflaanta xun ee aadka xun ee dadka bini'aadamka qalbigooda madoobeynaayo marka sidaas loo blogareeyaa oo IP address-kan ayaa la geliyaa position-ka hadda waa inoo soo laabtay IP address-kan waa noo qaatay waxaan tagaynaa waa DHCP client list ma client server client waa DHCP and DHCP setting markaan tagno waa kan hadda ugu jiraa marka
mar dambe marka message nooma soo dhacayo oo ku xigta notification message ah oo aflaanta nooma soo dhacayo. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.